ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janaalka dabagalka wararka waa 6 bisha 7 sanadka 2020 qodobada ugu doorka roon warkeena waxaa kamid ah madaxda maamul goboleedyada oo shir xasaasiya goordhow yeeshay kana soo saaray 2 qodob oo culus ex madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shaaca ka qaaday arrimihii ay kala hadleen gudoomiye Mursal iyo Cabdi Weli Muudey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shaaciyay in gudoonka baarlamaanka Soomaaliya uu wado muddo kororsi isla markaana meesha laga saarayo xukuumadda Soomaaliya meydka gabar yar oo la gowracay oo laga helay gobolka Galgaduud maxkamadeynta mas'uuliyiin loo haysto musuqmaasuq oo la soo gabagabeeyay dagaal la isku gacan qaaday oo dhaxmaray guddiga shaqalaha rayidka iyo ururka haweenka qaranka Somaliland oo shaacisay xog la yaab leh oo la xiriirta heshiiska cusub ee Taiwan iyo Israa'iil oo weerar waxyeello geystay ku qaaday warshad nuclear bomb ka samaysa oo ku taala Iran intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino muuqaalka like saar waa inoo muhiim qaybta hoose commentiga nagula wadaag faalladaada share garee oo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalka dabagalka wararka haatana warkiyo fidsan madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta shir ku yeeshay internetka waxaana ay si wada jir ah u soo saareen warmurtiyeed ay isla ogol yihiin shirkan ay ka soo qayb galeen madaxda shanta maamul goboleed ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka waxaana isla garteen 2 qodob oo muhiim ah sida ku cad warmurtiyeed ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada ayaa waxay ku baaqeen in marka hore ay isugu yimaadaan shir ay kaga tashanayaan arrimaha masiiriga ah ee dhanka siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waxaanay ku ballameen 9 bishan oo khamiista ku beegan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug sidoo kale shirka ay yeelan doonaan 9 bishan ay kaga hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa shir degdeg ah oo isugu yimaadaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda maamul goboleedyada ku casuumay shirka amniga qaranka balse waa uu baaqday kadib markii Jubbaland iyo Puntland ay ka biyo diideen qorshaha dowladda ee dhanka doorashada iyo arrimo kale wixii ku soo kordha shirkan madaxda maamul goboleedyada iyo dadaalada loogu jiro in la isku keeno madaxweyne Farmaajo qayre gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxda maamul goboleedyada wararkeena kale aad ku daawan doontaan markan waxaan toos kugu xirayaa waryaheena Muqdisho oo noo sii anbaqaadaya faahfaahinta wararkeena kale aad baad u mahadsantahay daawadayaal halkan waa janaalka dabagalka wararka haatanna markaan u sii anbaqaadno qodobada warka janaalkana gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan dhaxmaray gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa Cabdi Weli Muudey Sheekh Shariif ayaana sheegay in isaga iyo madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ee xarunta madasha xisbiyada qaran kula kulmeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdi Weli Ibraahim Muudey iyadoona kulankan ujeedkiisu ahaa wada hadal laga yeesho xaaladda dalka gaar ahaan in gudoonka golaha shacabka uu warbixin la wadaago madasha xisbiyada qaran oo talooyin dhowr ah mar horeba ujeediso hoggaanka sare ee dalka waxaan si gaar ah ugu doodnay baahida loo qabo in doorashooyinka waqtigooda ay ku dhacaan ayna noqdaan kuwa laga wada tashtay oo loo dhan yahay keeni karana nabad iyo horumar loogana gudbi karo xaaladda adag ee dalku uu marayo maanta isla markaasna ay jirto mabaadi guud iyo damaanad lagu xaqiijin karo dhammaan qabsoomida howlahaasi baaxadda leh oo ay noo muuqato in madaxda dowladdu aysan daacad ka ahayn ayuu yiri Sheekh Shariif qoraalkan uu soo saaray madaxweynihii hore ayuu ku sheegay inay isla garteen in wada hadal la sii wado si ay u sahlanaato in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha xasaasiga ah ee ku gadaaman doorashooyinka qaranka si loo helo aragti midaysan oo ka dhalan karta kalsooni iyo in lagu wada qanco habka doorashooyinka oo loo marayo dariiqa saxda ah ee uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuurna waxa uu shaaciyay in gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu wado muddo kororsi hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlayay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020 ilaa 2021 ayaa aydan ujeediyo gudoonka golaha shacabka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa shaaciyay in gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdi Weli Sheekh Ibraahim Muudey ay wadaan muddo kororsi hor leh iyo in xilligan la bedelo xukuumadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu ugu baaqay in muddada 4 bil ah ay u hartay inay ka shaqeeyaan sidii ay dalkan uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah waqti
xilligeeda ku dhacda. cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana intaasi ku daray haddii ay ka gaabiyaan dadaalka laga sugayo inay soo bixi doonto cid kale oo buuxiso booskooda sida uu hadalka u dhigay. dhanka kale waxa uu hoosta ka xariiqay inuu dhiirigelin mudan yahay gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo dhankiisa dadaal xoogan wada. mursal iyo muddo xileedkooda 4 bil oo kaliya ayaa ka harsan halkii uu waqtiga kaga lumi lahaa muddo kororsiiyay in xilligan xukuumad la bedelo. waxa uu haboon in ay waqtigooda geliyaan sidii loo qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay oo si nabada xilligeeda ku dhacda. haddii ay kaalintooda gabaan cid kale ayaa kol aan dheereen buuxi doonta. waxaa dhiirigelin mudan kaalinta gudoonka aqalka sare ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur oo marar badan si adag uga hadlay xaalada dalka. hadalkan ayaana ku soo aadaya iyadoo gudoonka golaha shacabka uu kulan gaara la yeeshay madaxweynayaashii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyagoona ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya 2020 ilaa 2021. geesta kalena meedka gabar yar oo la gooracay ayaa laga helay gobolka galgaduud. wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegay in gabar yar oo la la'aa muddo 15 cisho iyadoo meed ah laga helay deegaanka Cayn oo hoostaga magaalada Godilaba ee gobolkaasi. gabadhan yar oo da'deeda lagu sheegay 12 sano jir ayaa waxaa lagu soo waramayaa in la gooracay kadib iyadoo gacmaha iyo lugahaba ka xiran geedna lagu dhaxriday. marxumadan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Caaisha Maxamed Shanley waxa ayna la nooleed ayeedeeda oo degneed duleedka Godilaba. gacmaha iyo lugaha ayaa laga xiray waana la bireeyay. rag dhagaxaan qodanaya ayay wax u soo ureen markii ay u tageen waxa ay arkeen meedka oo geed lagu dhaxriday ayay tiri mid kamid ah qoyska Caaisha. sidoo kalena waxaa goobta laga helay meedka tagay saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo sheegeen in ay haatan wadaan baaritaano dheeraad oo ku aadan dhacdadaas. lama oga ilaa iyo haatan sababta ka dambaysa dilkaasi arxan darada ah ee loo geystay gabadhaasi yar. ma ahan dhacdo ugub ah waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay meelo badan oo kamid ah dalka ka dhacay falal iskugu jira dil iyo kufsi lagula kacayo gabdhaha yaryar. maxkamadeynta mas-uuliyiin loo haystona musuqmaasuq waa la soo gabagabeeyey. maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo gabagabaysay kiis la xiriira musuqmaasuq oo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan mid kamid ah waaxyaha wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk Soomaaliya. mas-uuliyiintan ayaa waxa ay kala yihiin madaxa qeybta xisaabaadka ee wasaaradda warfaafinta oo lagu magacaabo Awees Xasan Cumar iyo wiilkiisa Qadar Awees Xasan Cumar oo ahaa milkiilaha shirkadda Al-Xabiis Business Center. xeer ilaaliye ku-xigeenka guud ee qaranka Farxaan Xuseen Maxamed ayaana sheegay in xeer ilaalinta uu codsatay eeda qodobada kale ah 208, 281, 251 iyo 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee nuxurkeeda eedooda ay tahay ku daneysasho xafiis dowladeed iyo musuqmaasuq ku eedeysan yahay Awees Xasan Cumar iyo wiilkiisa Qadar Awees Xasan Cumar oo ku eedeysan jebinta heshiis lala galay dowladda oo ahaa mid loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed. sidoo kale xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka Farxaan Xuseen Maxamed ayaana sheegay in kiiska maxkamadda ay u dirtay go'aan. waxa uuna sheegay in cid kasta oo arrimahan oo kale ay ku cadaato ay maxkamadda horkeeni doonaan. halka dawladda wadaya nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka. dagaal la isku gacan qaadana waxa uu dhaxmaray guddiga shaqaalaha rayidka iyo ururka haweenka qaranka. waxaa weli taagan dood adag oo u dhexeysa ururka haweenka qaranka iyo guddiga shaqaalaha rayidka Soomaaliya taas oo toddobaadkan gaartay dagaal gacanka hadal ah sida ay noo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. labadan urur oo isla degan dhismaha guriga hooyooyinka ayaa doodooda waxa ay soo taagneyd muddooyinkii ugu dambeeyay oo ka bilaabatay markii guddiga shaqaalaha la dejiyay dhismaha hooyooyinka. maalmo ka hor ayaa xubno madax ka ah oo ka kala tirsan labada hay-adood waxa ay ku doodeen boor ay guddiga shaqaalaha rayidka Soomaaliya damacsanayeen in ay ku dhagsadaan gurigan. waxaana arintaasi kasoo horjeestay Batuula Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed. dhinacyadan ayaa waxaa dhexmartay dood adag halka qaarkoodna ay sameeyeen gacan qaad inkastoo markii dambe la kala qabtay. ila wareedyo ayaa dabagalka wararka waxa uu sheegeen in ururka haweenka ay weli diidan yihiin in guddiga dhismaha uu degan yahay ee hooyooyinka ku dhagsadaan boor halka weli guddiguna shaqaalaha ay ku doodayaan arrinkaas. guddiga shaqaalaha rayidka ayaa ku doodaya in iyagoo fulinaya amar ka soo baxay
ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed oo ah in boorar ay dhegsadaan xafiisyada hay-adaha dowladda ay dhegsan doonaan boor halka ururka haweenkuna ay ku doodayaan inay raadsadaan xarun ay leeyihiin ama kira ah oo ay ku dhegsadaan balse halkan aysan ahayn xarunta loona baahan yahay in ay ka guuraan. halkii ay dooda ka taagneyd ee la damacsanaa in boorka lagu dhajiyo waxaa hadda mid cusub ku dhegsaday ururka haweenka qaranka soomaaliyeed maadaama ka hor doodan uusan guriga hooyooyinka ku dhegsaneen wax boor ah oo labada dhinac ah. somalilanna waxa ay shaacisay xog la yaab leh oo la xiriira heshiiska cusub ee Taiwan. xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xiriirka diblomaasiyadeed ee la yeelatay Taiwan midkaasi oo horseeday in labada dhinac ay wakiilo isku magacaabaan. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Faraton ayaa si cad u sheegay in heshiiskan ay kala saxiixdeen Taiwan oo ahaa mid qarsoodi ah isla markaasna uu soo socday muddo. wasiir Faraton ayaana sheegay mas'uuliyiinta Taiwan ay hore iskugu afgarteen qaarinta xiriirkooda cusub iyo heshiiskaasi kaas oo markii dambe dhowaan dibadda u soo baxay. heshiiskan cusub ee Taiwan iyo Somaliland kala saxiixdeen ayaa ku saleysan mid ganacsi iyo mid siyaasadeed walow uusan si cad uga warbixin wasiirka. Somaliland iyo Taiwan oo ah laba xukuumadood oo ku dooday inay yihiin dalal madax bannaan ayaa waxaa kala sheegtay dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo iyagu caalamku u aqoonsan yihiin inay hoos tagaan. xiriirkaasi cusub ayaa abuuray xiisad cusub xilli uu si adag uga horyimid Shiinuhu isla markaasna uu ganafka ku dhuftay madax bannaanida Taiwan oo Somaliland u aragto fursad u horseedi karta aqoonsi. heshiiska labada dhinac ayay dhowaan kala saxiixdeen ayaana la rumaysan yahay inuusan wax badan soo kordhin doonin maadaama Somaliland iyo Taiwanba aysan weli beesha caalamka ka helin aqoonsi rasmi ah. ugu dambeyntiin waxaanu eegaynaa Israel ayaa weerar waxyeelo geysta ku qaaday warshad nuclear ah oo ku taala Iran. wargeys ka soo baxa dalka Kuwait oo lagu magacaabo Al Jarida ayaa daabacay in Israel ay weerar internetka ah ku qaaday warshad soo saarta nuclearka oo dowladda Iran ay ku leedahay magaalada Natanz. dowladda Iran ayaana dhacdadaasi waxba ka soo qaadin balse quburadu waxa ay sheegeen in baqaar xasaasi ah oo qalab badan ku jiray ee waxyeelo soo gaartay. ila waradii ayaa wargeyskan aan soo xiganayno ee Al Jarida u sheegeen in weerar dhanka internetka ah warshadan lagu qaaday. warkan waxa uu xiriir la leeyahay weerar hore oo lagu qaaday kaabayaasha biyaha Israel kaas oo lagu eedeeyay inay fulisay dowladda Iran. sida wargeysku uu ku waramay howlgaladan waa kuwa curyaamin ah qaraxyo ka dhaca Natanz iyo sidoo kale Barjin waxaa lala beegsaday baqaaro lagu keydinayay gaaska oo lagu bacriminayay waxyaabaha laga sameeyay nuclearka. bishii November sanadkii 2019 Iran ayaa shaaca ka qaaday soo saarida gaaska waxa ayna dowladda Iran soo saaristaasi ku hormarinaysa magaalada Natanz. Ali Akbar Saalixi oo ah afayeenka ururka quwadda otomaatika ee Iran ayaana ka hadlay gaaska iyo soo saaridiisa cusub. waxa uu sheegay in magaaladaasi sanadkii 2019 ay ahayd meel ay ku yaalaan ku dhawaad 30 baqaar oo ku kaysan gaaska loo yaqaano IR-6. wargeyska Iran ayaana ku dooday in dowladda Iran ay hadda weysay 80% gaaskeeda. kani waxa uu egyahay weerar elektroonig ah oo lagu qaaday isku xirka internetka kaasi oo ilaalinaya haamaha kaydka. Iran waxay u baahan tahay 2 bilood si ay khasaarahaasi uga soo kabato ayuu wargeysku qoray. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii aad kala socoteen janalka dabagalka wararka fadlan haddii aan uga cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar janalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 gazacan halkan ku baahino. aragtidaada halkaas noogu reeb muuqaalka share garee waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.